aanu nahay guddigii farsamada ee ka shaqeynaysa arrimaha doorashooyinka ee ku kulmaysa halkan magaalada Baydhabo. Waxaan rabaa halkan inaan idinka akhriyo war saxaafadeed yar oo kooban oo aanu rabno inaanu bulshada Soomaaliyeed la wadaagno oo khuseeya arrimihii lanoo igmaday. Shirkii guddiga farsamada ee arrimaha doorashada ee ka qabsoomay magaalada Baydhabo, caasimadda ku-meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, dhacay 15 ilaa 16 February 2021 wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah. Guddiga oo ka duulaysa mabaadi'da aasaasiga ah ee wadar ogol, isu tanaasul, isqancin iyo tixgelin la tixgelinayo xaaladda dalku uu ku sugan yahay si qoto dheerna u eegaya uga dooday qodobada caqabadaha ku ahaa fulintii heshiiskii 17 September 2020 iyo duruufaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Guddigu waxay si gaar ah diiradda u saareen dhiraandirinta farsamada iyo xal u helidda qodobadan hoos ku xusan. Qodobka koowaad oo ahaa cabashadii laga muujiyey in qaar ka mid ah xubnaha guddiyada doorashooyinka aysan waafaqsaneen habraacyada iyo shuruucda xubinnimo ee guddiyada doorashooyinka lagu qeexay heshiiskii 17 September 2020, gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay'adaha amniga. Qodobka labaad ee guddigu diiradda saareen waa xal u helidda guddiga doorashada kuraasta Somaliland. Qodobka saddexaad isna waxa weeye xaaladda gobolka Gedo iyo doorka doorashada ay ku leedahay. Qodobka afraadna waxa weeye adkeynta qoondada haweenka. Qodobka shanaadna waa jadwalka qabsoomidda doorashada. Shantaa qodob ayay guddigu ka wada xaajootay. Guddigu waxay xal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobada kor ku xusan. Waxayna madaxda golaha wada tashiga qaranka u gudbinayaan soo jeedinta guddiga si ay u meelmariyaan. Guddiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqayaan madaxda golaha wada tashiga qaranka inay shir isugu yimaadaan 18 February 2021. Guddigu waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dawladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo na soo dhaweeyay nana martigeliyay intii halkan aan joognay. Guddigu waxay sidoo kale u mahad celinaysaa beesha caalamka oo dadaal joogto ah ugu jira sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay.